السلام عليكم peace and love Somali محمد وأذي سلامي نعيمة نلكا وانسوا لابتي مالين عسوب يا سنة عسوب الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد سومالي شيكا إذن هيا شيكو كتير أنا أهين أو لكن عدي هاي عدي انتي سنة لهيا إذن هيا مدحوينها ترام maraykanka madaxweynaheena aan iraahno kulle madaxweyneeni weeyaane wadankeena labaad baan joognaa America USA madaxweynaha maraykanka wuxuu yiri aad aragteen inuu Soomaali haysto inuu Soomaali ku dhagan yahay inuu Soomaali macnahaas afkiisa markii la arkaba Soomaali soo qaado waxaa la keenay cadeymo waa hore ma dhaweyn 20 sano 30 sano ka hor miya Allahu aclam ma aqaano aduu muddo ka hor xiliyadan Soomaalida inta wadanka aad u soo gelin ayaa waxa dhacday gabar buu jeclaado Soomaaliyeed gabadhaas waa gabar model ah oo aktarad ah oo la yaqaano waa gabadhii ugu horeysay Soomaaliyeed oo Hollywood-ka ku soo biirta gabadhaas la sheekaystay wuu jeclaaday xataa waxa la leeyahay oo nusida ay sheegayaan maadaama la soo baaray meesha uu naga dab qaatay oo naga daba raacay oo naga arkay la soo ogaaday ay tahay gabadha Soomaaliyeed inuu jeclaaday gabadhiina ay diiday ay dhahday kuma rabo ninka cadaanka ka dhiman jira Allah naxariista ka raacday magaciisa ayga maqan ma aqaane anyway xataa dhowr jeer oo casuumaad u fidiyay ay u tagtay wada hadlan sheekaystaan oo guur soo bandhiga guurkiina way ka diiday hadana maxaa loo leeyahay marka Trump muxuu noo nacay muxuu nagu arkay maxay la ninku waaba nin maseersanba ومسيري كرا لكن أنك ما وح أوجي مركي دعيين ما أنك أوجي مركو قبل ولا شيء كيسنيه ما أنك أوجي مرقاتك أهين محسوم مارو أنا نقدر جاي أنا أديدن إذا ديت سما كبدن هذا نحن ربع إن إيمان هو إيماني وعلى معاني I know أوجي إن أديرتي بعتهاي قبل سوماريت بعتهاي أدي قدرتها بعمان تسوماري لو دبعتينيا adiga dartaba Soomaalina loo dhibaateeyay oo loo dhibay oo loo rafaadiyay oo loo silciyay oo loo tarxiilaya walaalay soo hadal waa iga codsi iimaan soo hadal muxuu madaxweynaha in aan la hadashid la fariisatid maxay ka dhaadhicisid oona anaga marqaati ka ahayn xilliga aad wada hadlayseen aanan waxba ka ogeyn u sheeg walaalay haddeen ahayna sama maanta xarbaa tahay isku da'ana waatiin walaalay macaane odaygan xoogaa uu ka wiyo oga laakiin adaa ka yar haddana waxaan ka codsanaynaa odaygan meel mari inaad meel saartid rabnaa hadaad waniyo aniga aday wax walba naga dhaxeeyaan dadkayga faraa ka qaad waa wax la gartay inaad saa tiraahdaa fiican u caqli celi oo odayga naga aamusiye ilhaan buu daba dhigtay Soomaali buu daba dhigtay Soomaaliyo daba dhigtay madaxdii buu daba dhigtay wax uu noo reebtayna malaha Ilaahay abuure Soomaaliya ma qaldanahay mise waan ku saxanaa inaan iimaan kula taliyo inuu madaxweynaha inay madaxweynaha naga qabato meel naga saarto marka iimaan codsiga inuu ku soo gaaraa rajeenaya TikTok-ana waxaan kuugu ahay fareen baan kuugu ahay waan ku soo share gareyn doonaa video-ga insha Allah ta'ala sawirradana waa kana gabdhooy ama ummadda Soomaaliyeed waxa idin tusayaa iimaan iyo Donald Trump oo wada hadlaya wada shaaheynaya caweysamaya oo fadhiya maqaaxi maasha Allah casuumaad u fidiyay baan arkaynaa oo meesha soo dhigaynaa idinkana indhiina marqaati idin ah oo macallin idin noqonaya halka ka daawada oo halka kala socda hadhowna hadhiina ma taqaanaan muxuu noo dhibay muxuu saa noo yeelayaa laanin walba ajnabi markay gabdhaheena diidaan waxa weeye Soomaaliba ma aragtay la dhacayaan muxuu istimcad xumo magac xumo ay aflagaado wax alla waxa awoodaan waa kana xagee laga marayaa hadda meel laga maraha iimaan aadin baa soo afjari kara madaxweynahan hadalkiisa adigu baa soo afjari kara waana naga codsi walaalay macaanay madaxweynaha la hadal insha Allah intaas aan uga baxayaa Soomaaliya idinkana la hadla iimaan walaalay macaanay
magaceeni sumcadeeni wadankeeni dowladeeni dadkeeni maxay ahayd meeqaamkeeni baa ku jira oo muxuu ahaa sababtaadana ay tahay abaya meel saar arrintan waan iga codsi intaasaan uga baxayaa waxaana leeyahay peace and love yaa adduunkana la isma dhibe waa la istartiibiyaa orodna laguma gaaro wax walba kaa maqana ilaahay madaxiisa loogu daayaa samir iyo iimaan wax walba